sayid saadaad waxa uu ahaa wasiirkii warfaafinta dalka Afghanistan ka hor intaanu cararin dalka Jarmalka bishii Disembar isagoo doonayay mustaqbal fiican. Waxa uu hadda ku nool yahay magaalada bariga dalka Jarmalka ku taale loo yaqaano Leipzig isagoo baaskiil ku shaqaysta. Waxa uu sheegay in qaar ka mid ah asxaabtiisa ku sugan dalka Afghanistan ay ku cambaareeyeen inuu ka shaqeeyo shaqooyin noocan oo kale ah kadib muddo 2 sano ah oo dawladda u shaqeynayay ka hor intaanu xilkaasi iska casilin sanadkii 2018 balse ma aaminsanay isagu inuu shaqooyinkan oo kale yihiin shaqooyin hooseeya. waxba kama shalaynaya ayuu 49 jirkan u dhashay dalka Afghanistan balse haysta dhalashada dalka Ingiriiska isagoo sita dhar midabka orange-ka ah isla markaana dhinac taagan baaskiilkiisa. wuxuu dawladda Afghanistan uga tagay kadib khilaaf soo kala dhaxgalay isaga iyo dad aad ugu dhawaan madaxweynihii dalkaasi. waxaan rajaynayaa in siyaasiyiinta kale ay qaataan wadadaydan oo kale oo lana shaqaystaan bulshada intii ay dhuuman lahaayeen. sheekadiisa ayaa soo shaac baxday kadib isbedelkii ka dhacay dalka Afghanistan kadib markii ay gacanta u gashay taladii dalkaasi kooxda Taliban. qoyskiisa iyo saaxiibadii ayaa sidoo kale doonaya inay ka tagaan dalkaasi iyagoo rajaynaya inay ku biraan kumanaanka kale ee duulimaadyada lagu daadguraynayo kadib bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan. tirada dadka Afghaanistaaniyiinta ee magangelyadoonka ayaa aad u kordhay iyagoo dalka Jarmalka gaadhay tiradaasi 30% sida ay sheegtay waaxda socdaalka ee dalka Jarmalku. Cabdirasaaq Axmed Aadan Tayga, telefishinka caalamiga News.